runtii waa ahmiyad weyn waaye in qof kasta oo maaragtay marxaladda Soomaaliya go'aanka gaaridda ama saamiliyada siyaasadeed ka mid ah in lagu soo daro waa qaba waliba inta kale maqarna in lagu soo daro si uu miro u dhasho sababta waxa laga hadlayaa waa ayaha Soomaaliya waxa laga hadlayaa waa doorashadii dhici doonta siday noqon doonto iyo qaabka u ekaan doonto waa arin masiiri ah marka arinkaas masiiriga ah in qof kasta oo wax kale oo ama xog haya ama go'aan kule in lagu soo daro anigu waan qabaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah wuxuu gudoomiye ka yahay iyo duq magaalo caasimadda muraayada Soomaaliya uu duq magaalo ka yahay wuxuu matalaa ummad ku dhow 3 milyan ilaa 4 milyan muhiimad gaar ah u leedahay shirkan ka qaybgalkiisa wuxuuna wax ku leeyahay go'aamada halkan lagu gaari doono waliba hadda kaliya ma ahan gudoomiyaha gobolka waxa fiicneed inuu dhuuso mareeb 1 iyo 2 qayb ka noqdo oo go'aanada iyo ka qaybgalka shirka oo qayb ku lahaado haddana muhiimad gaar ah u leedahay inuu gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada shirkan ka qayb galaan waxay ka dhigan tahay shirkan inuu dhameystiran yahay gobolka maqan iyo heeb ka maqan aysan jirin gudoomiye Cumar Finish shirkan inuu ka soo qayb galo run ahaantii dadka Muqdishaawiyiinta matala xaq u leeyahay shirkan inuu ka soo qayb galo caasimadda ummadda Soomaaliyeed oo gudoomiye gobolka yahay shirkan ay tan muhiimad gaar ah oo aad u weyn u leeyahay gudoomiye Cumar Finish inuu ka soo qayb galo waxaan rajaynaynaa ka soo qaybgalkiisa shirkan inay micno badan u abuurto dadka Muqdishaawiyiinta muhiim gaar u yahay maxay la tala Soomaaliyeed la raaw meeshan inay ku soo baxdo siyaasad loo dhan yahay heshiis loo dhan yahay inuu ka soo baxo loo baahan yahay asagana matalaad rasmi oo haysta dad iyo deegaan oo matalaad rasmi oo ka haysta sidaas darteed shirka muhiim u yahay lama horaan in ay inuu ka soo qayb galo waliba waxa ay inuu dhuuso mareeb 1 iyo dhuuso mareeb 2 oo ka soo qayb galo laakiin haddii san suurto gelin bacdama dhuuso mareeb 3 ee tan meesha masiirka lagu gaari lahay inuu fadhiyo oo masiirka meesha lagu gaarayo dadkiisu ku matalanay waa waxaan aad ugu faraxsanahay isla markaas inuu mudan yahay gudoomiyahan islaana arinta la xiriirta markii ugu horeysay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo ku yimaado magaalada Dhuuso Mareeb dadka reer Galmudug runtii waxay muujinayaan dareen gaar ah oo la xiriira in gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maqaam sare ugu fadhiyo dadka reer Galmudug runtii waxa la socotaan reer Galmudug inay kaalin muhiim ah uga jiraan horumarka iyo ganacsiga gobolka Banaadir oo runtii oo gudoomiyaha caasimadda uu ka yahay gudoomiye annagana farxad ay noo tahay inaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ku soo dhaweeyno Dhuuso Mareeb la sheekeysano dhalinyarada hadda nahay iyo hadii qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda ay tahay runtiina aan siino dardaaran iyo arrimaha la xiriira sidii maqaamka gobolka Banaadir runtii sare loogu sii qaadi lahaa meesha uu hadda joogo meel ka fiican uu gaari lahaa